toddobaatan dadka dunida ku nool waxay ka cabsadaan fagaara ka hadalka iyo inay dadka ka hor hadlaan haddaba waxaan ka arki doonaa maxaa keena cabsida in qofku uu cabsado marka uu dadka soo hor istaago ugu horreyn ku soo dhawow galaysan academy haddii aad channelkan ku cusub tahay waxaanu kaga hadalnaa waxyaabaha la xiriira online businesska cryptocurrency iyo horumarinta shakhsiyadda nagu soo biir si aad u hesho marka muuqaalo badan oo runtii wax badan kugu biiriya ama wax badan aqoontaada ku kordhiya waxyaabaha horta sababa in qofku dadka ka hor cabsado waxa kamid ah qofku wuxuu ka cabsadaa qiimeynta dadka wax u jeedinayo sida ay u qiimeynayaan oo waxa la yiraahdaa fear of judgment wuxuu qofku ka cabsadaa horta dadka aad wax u jeedinaysaa sidee ku arkaan wuxuu ka baqaa in lagu qoslo in la dhaliilo inuu qalad lagu arko taasi waa sababta ugu weyn oo qofku uu cabsado hadii goor wuxuu ka cabsanayaa dadka falcelinta ay sameynayaan waa qodobka koowaad waxyaabaha sababaha kamid ah sababa in qofku dadka uu ka hor hadli kari waayo kalsooni yaraan ama kalsooni la'aan qofka kalsoonidiisu aad u hooseysa hadii qofku is hoosisiyo macnaha hoos isku dhigo oo macnaha uusan qofkii uu arko isagu inuu isliido waxyaabaha sababay kamid tahay sidoo kale inuu u maleeyo inuu qofku ku lahayn aqoon ku filan oo marka uu dadka u gudbin karo kalsooni yaraanta marka waa qodob kamid ah qodobada keena marka qofku inuu dadka ka hor cabsado qodobka saddexaad waxyaabaha keena qofku dadka ka hor cabsado waxa kamid ah khibrad la'aan qofkii oo aan khibrad u lahayn ama hore aan dadka ugu hadli jirin ha noqoto masrax fasal hortiis ama shir ama xaflad wuxuu si dabiici ah u dareemayaa cabsi maadaama ay ku cusub tahay waxaan wax kasta oo kugu cusub waxay keenaan marka inaad ka cabsato tusaale hadii lagu yiraahdo daawurku lagu soo istaajiyo lagu yiraahdo suuratul qul huwa allah akhri طبعا سيف فوتبول واخرنيسا صوتها واتقانا واحد ما كسوع العليسي لكن marka aad shay cusub ama wax cusub aad jeedinayso dadka aad hore uga hor hadli jirin runtii aad bay adkaanaysaa qofka cabsi buu dareemaya qodobka afraad waxyaabaha keen waxa kamid ah khibrad xun oo hore tusaale qofku waxa laga yaabaa in la soo kulmay dhacdo hore isagoo dadka hor hadlay tusaalaan inuu ama saasoo kale u jireeyay dhibaato ka raacday dadku falcelin qaldan ay kaga timi la yiraahdo waxaan wax ka maana fahmin taasoo kalena way keentaa qofku in negative hore uu niyada ku haystana way keentaa inuu si cabsado waxyaabaha keena waxa kamid ah in qofku ka cabsado inuu qalad sameeyo waxyaabaha keena ay kamid tahay qofku inuu markaa si dabiici ah u cabsado dad badan waxay u maleeyaan hadii aad hal qalad sameeyso waa ku dhamaatay qofku aaminaya laakiin run ahaantii dadku ma fiirsadaan sidaas oo sidaas uma fiiriyaan qofku markuu dadka ka soo horjeedinayo laakiin qofku waxa ka dhaadhicinaya hadii hal qalad uu ka dhaco meeshii la rabay qofku inuu soo macnaha kabto oo hore uga socdo qaladkii uu sameeyay isla markii waxa laga yaabaa qaladkaasi inuu u keeno guud ahaan wixii uu waday oo dhan in uu khadka ka baxo oo qofkii markaa uu soo noqon kari waayo waxyaabaha keen waxa kamid ah oo qodobka lixaad ah walbahaar iyo fikir badan qofku inuu aad u walbahaaro aad u baqo overthinking ama fikir badan uu qofku u sameeyo uu ka fikiro maxaa dhacaya hadaad wax ilowdo hadii codkaagu uu gariir aad sameeyso ama aad baqdo kale maxaa dhacaya dadku maxay ka aaminayaan waxyaabaha keenaya kamid ah qodobka waxyaabaha keeni kara waxa kamid ah jirku inuu si degdeg maadaama qofku maskaxdiisa culays badan uu saaray jirku wuxuu sameeyaa marka si dabiici ah dheecaana ayuu sii daayaa ama hormones ayaa la sii daayaa hormoonadaas waxay sababaan marka in wadnuhu si degdeg u qaracmo qofku markuu dadka hor istaago wadnihiisu inay qaracmo wadnihiisu inuu gariiro oo qofku uu dareemo in wadnuhu aad u gariirayo ama aad wadnuhu u qaraacayo gacmuhu inay dhididaan qofku gacmuhu dhidid badan uu ka soo baxo haduu warqad akhrinayo warqad uu qaban kari waayo haduu buug haystay buugii uu qaban kari waayo hadii uu sawirada hortaagnaa lugaha ka jareeyo gacmaha ka jareeyo ay ku soo dhawaato macna dabcan in uu isku wakaadiyaba waxa way aad qofka xaaladiisu ay u korba macna wax uga bedelmaan waxa dhacdo kale soo qofku codkiisu inuu gariiro kale oo codkiisu inuu isbedelo oo gariiro waxa laga yaabaa qofku inuu caloosha laga qabto suuli u baahdo waxa soo dhan marka waxa keenaya dheecaano hormoona oo jirkeena ku jira oo jirku markuu culays badan maskaxdu ay fuusho oo qofku overthinking uu sameeyo fikir badan aad uu fikiro in marka dheecaanadaas la soo daayo dheecaanadaas waa dheecaano dabiici ah marka ma aha wax xanuun ku khusaya ama xanuuna ma aha waa dheecaano dabiici ah marka maskaxdu culays badan la saaro pressure badan in la soo daayo marka qofku wuxuu la kulmayaa marka wadna qaraac dhidid badan daal in suulu u baahan yahay in qofku si yiraahdo wax weeye ma bacradhaaba meesha mar inta iska tuurto mikrofoonka ma caradha waxaasan waxyaabaha keenaya weeye marka sidee loo xallin karaa cabsidan waa la xallin karaa xal waa leedahay xal fudud bay leedahay qof kasta uu ka gudbi karaa waana 170 wax adduunka laga siman yahay in yar un baa dadka khibrad leh uma runtii cabsida wax weeye maareeya qof kasta wuu cabsadaa laakiin waxa lagu kala duwan yahay sidee cabsida loo maareeya waxaan arki doonaa markaa
dabcan koorso dhan oo aan diyaarinay baa jira oo lagu baranayo fagaara ka hadalka oo qof public speaker ka si dhammaystiran loogu baranayo dabcan qodobo badan baa jira oo keena cabsida qofku inuu cabsado xalal bay leedahay iyo natiijooyin la gaaro iyo qofku inuu sameeyo dabcan preparation marka koorso dhammaystiran ilaa 15 muuqaal ka kooban weeye qof kasta uu ku biiri karo koorso bilaash weeye marka soo dhawo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh